ama amuur kala meesha fadhida laakiin intii aan anigu garaadsaday intii aan anigu garaadsaday waxa aan ku hana qaaday burburkan laakiin waxa aan nasiib u yeeshay inaan garaadkayga ku daba galo aniga maxay iga horeeyay 1960kii ilaa intii uu siyaad bare qabsaday Allah yarxamay labadii dawladeed ka horeeyay sida la wada ogsoon yahay waxay ahaayeen laba dawladood oo noqday dhashii gumaysiga cidii doonaysay inay xujayso diyaar baan u ahay dawladii siyaad bare waxay ahayd dawlad dibteeda deefteedaba wadata laakiin Soomaalidu waxay ku xun tahay haddaad kun sano xambaarsanaato maalin adigoo xambaaray uu ka dhaco tium bay xasuusan yihiin kadib waxaan isiri maanta maadaama la kala tagay dadkuna ay saddex qaybood u noqdeen qayb iyagu dawladnimadii Soomaaliyeed iyo nidaamkii dhisnaa joogtay laakiin rafaadku ku xoog batay inuu hagaajiyaan jeclaan wax meel wax ka qabilaabaan aan jirin iyo qayb inta iyagu dawladii naga dumiyeen waqti xaadirkan u xusul duubaye intay gobol nagu ootaan inay shilimo ay noogu hor joogsadaan caadifad nagu beeraan معيمو aad baa ma santahay waa soo laaban doona haduu Ilaahay idma qaybaha labaad iyo kooxan anigu kamid ahay oo intee wadanka burburkiisii ku dhasheen qaarkoodna wax rabaan qaarkoodna aanay waxba rabin oo jaha wareeray in badan aan raadin ugu jiray inaan anigu hela calan Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf ku noolaado laakiin waan ka xumahay nasiibkayga maan helin taas